بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورنا horta de kulli dalka waxa ka jira waa ognahay abaaro runtii aynaan mala horaba u arag oo dayrtii inagu bilaabmay jiilaal oo dhamay isagoo dambeeyo runtii aanu dhowr goor baan uga hadlo xilli dayreedka la waayay roobkii iyadoo gugii horena uu xumaa abaarina ay ka horeysay guga intaasoo dhan baa isu keen daba yaallo dabeedna dayrtaa la waayay waxay keentay in jiilaal oo dhan oo dambeeyo imika uu madaxiisii la galay xaalad adag oo deegaanadii dalka intiisii badnayd laga barakacay. abaar noocaasi waa jirtaa xilligii doorashaduna wayna soo guda galay oo dee maanta waxay taagan tahay in dee kaararkii la qaybiyo oo goobihii doorashada inta la tago dadka kaararka loogu qaybiyaabay ahayd doorashada ka hor muddo ka hor ololaha intaanu bilaabin bisha ololuhu intaanu bilaabin ka hor badda intaa la dhameeyaabay ahayd marka dee waxa taalla duruuf aan komishanka iyo shaqaalihiisi maanta aanay goobihii dalka boqolkiiba 4.7 wixii magaalooyinka waaweyn ka baxsan aan loogu tagin dadkii laga way taagan tahay. ta kale aad iyana tiri xaaladdaas taagan ee ismaandhaafka aad ku tilmaantay weli anugu ismaandhaaf adag waxaan isleeyahay malaa weli lama gaarin mar unbaa dee maalin unbaa la kulmay maalintiina laba ra'yi oo dee iska soo iskhilaafsan ayaa runtii meesha ka soo baxay sida dee aan miidiyahaba ku arkayay hore u faafiseen laakiin weli dee dhadlok ma gaadhino gooraynu isnidhaahno ismaandhaaf la ismari waayey baa ayaa taagan taana weli may gaadhin oo maantaba ballan baanu la lahayn komishanka wuxuu u yar baaqday iyadoo dee la is arkayo oo guddoomiyaashii xisbiyadu inay bal kulmaan kolley kulamo ay lahaayeen ayay dib ugu yar dhacday. waxaan isleeyahay dee kulamada iyo wadahadal dambe oo dambayn doono oo dee komishanka lala yeelan doonaaba inuu dee sidii aanu daraata kaga nimid wax ka duwan laysla meel dhigaa waa suurtagal weeye marka weli maandhaaf gaarsiin maayo marka dee xaaladdu waa labadaasay taagan tahay abaartii oo halkaasa iyo imaka ilaa imaka weli iyadoon laysla qaadan xisbiyadii in doorasha ay qabsoontay iyo inay dib u dhacday iyadoon laysla qaadan labada meelood labada arrinba waa taagan yihiin laakiin xisbiyada mucaarad kale leeyahay iyagu waxay dalbanayaan in muddo kordhin asameeyo taa ka war kolley dee sidaa warkaa horeba waa u gudbiseen inkastoo oran jeclayn in maxaanku dhahdaa kolley dee khilaafka la buunbuuniyo oo horta ilaa ay meel degto in laga sii warramo aanay ahayn haddana sidii dee warka kaga qaadeen saddexda xisbi maalintii way muuqatay taasi in labadii xisbi ee mucaaridku ahaana dhan ay noqdeen xisbigii kulmiye ee dee maanta xisbigii dee talada dalka hayay loo tirinayeyna inuu isaguna dhan noqday way taagnayd taas waxa saasay ahayd sida ka soo baxday waraysayadii dhawaanahan xuseen adigu warbaahinta kama hadleen horena hadalla qalabsan oo saaxiibka musabixaad ugu darasa ayaad uga sheegi jirtay ma waxba iska bedelay fikirkaaga hore ahaa in aragtida kala qabto horta dee muuse wax kale nagama dhaxayn muuse iyo anigu laba shakhsi oo laba muwaadin oo runtii wax iyaga u gaara dee isku haya maanu ahayn muuse waxaanu ku kala duwanaynu da aragtida dalkaan madaxweyne ka ahaado iyo anigoo u gara waayay taa iyo qaabkii uu ku imanayey xataa haddaanan la ra'yi ahayn laakiin xisbigu uu isu iman lahaayoo sidii dee ay qawaaniintiisu farayeen iyo wadatashigii uu lahaan jiray haddii laysugu yimaado oo jaaniskaa la ogolaado oo la igaga guulaysto ka ku gacan qaadi lahaa ee ku hambalyeyn lahaa baan ahaan lahaa laakiin markii taa la diiday ee albaabkaan la xidhay wadatashiga dee waxaan go'aansaday meel aan tala kuu oolin inaad ka talisaa meel aanay kuu oolin dee wax loogu sii meeraystaa ma taalla meesha muuse halkaanu ku kala tagnay taasaa hayda dagaal shakhsi oo noo yaallay ma ahayne shirka iyo qaabka loo abaabulay iyo majaraha uu u maray musharaxnimada ayaan dee taasaan ka soo horjeestay